السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel kastoo adduunka ka joogteen waxaa idin leeyahay waxaa idin tahay wanaagsan maasha Allah. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sheeko ku saabsan ama sheeko ku saabsan saaxiibka xun. sheekada aad ayuu gaaban tahay. sheekada waxa ay dhex martay aabba iyo caruurtiisa, waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. barba waxa wada noolaa qoys oo aabbo u ahaa oday caaqil ah. maalin maalmaha ka mid ah ayuu caruurtiisii isugu yaray si uu u digo saaxiibka xun. aabbihii waana dheer kadib ayuu tusaale u soo qaatay. mid ka mid ah caruurtiisa ayuu suuqa cambo ugu diray. cambihii ayaa loo keenay, waxa uu ku daray hal xabo oo hal xabo buko ama kale hal xabo camba bolol ah ayuu ku daray. wuxuuna caruurtiisii ku yiri meel ayaan ku keedin doonaa, kadib waxa dhacaya ayaan wadan arki doonaa. cambihii waxa uu ku riday salad. maalmo kadib ayuu caruurtiisii ku yiri saladii ii keena. markii loo keenay ayuu ku yiri eeg waxa ku dhacay cambihii kale ee fiicnay. waxaa qurmiyay ama bololiyay hal xabo oo kaliya, horeyna u qurunsanaa ama u xumaa ama bolol u ahaa. sidaas ayuu saaxiibkaaga xunna noloshaada saameyn ugu yeelan karaa. saaxiibkaaga xun waxyaabo xun hadduu kuu horseedo waaba saaxiibkaaga xun. sheekada meesha ayay ku eg tahay. waxyar mahmaah ayaan rabaa inaan ku daro. deriskaaga caddaan iyo madow intaan ka ahayn wuu ku qabadsiiyaa. soolana maqlin. maasha Allah, waa mahadsantihiin. khayr Allah idin siiyo. saadii caabisaan ama aad ii garab qabataan, maasha Allah. Allah idin caabiyo, Allah idin garab qabto. saani si ka badanna waa idinka rajaynaa insha Allah. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay, subscribe, like, share, commentiga igu reeb fikirkaaga. waxay fikir commentiga hoos igu soo reeb. share maasha Allah. sidaas iyo amaana Allah. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.